maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ballan qaaday in maxkamadda ciidanka qalabka sida loo gacan gelinayo 6 nin oo lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada amniga ka sameeyeen degmada Dharkiinley. ciidamada oo ka jawaabaya baaq uga yimid bulshada ku dhaqan degmada Dharkiinley ayaa gacanta ku soo dhigay 6 nin oo hubkii ay wateen iyadoona maanta lagu soo bandhigay degmadaasi. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Yariso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo saraakiil la socotay ayaa maanta gaaray degmadaasi iyadoo loo soo bandhigay raggaas iyo hubkii ay wateen. duqa magaalada Muqdisho oo ciidamada amniga ugu mahad celiyay shaqada ay qabteen ayaa ku bogaadiyay in ay ballaariyaan howlgallada amniga ay ku xaqiijinayaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in raggaasi lagu wareejin doono maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoona laga sugayo in ay cadaalad helaan. ilmudaab waxaan wadnaa anaga magaaladan caasimadan amnigeeda iyo nabadeynteeda shacabka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay amni iyo nabad. annaga halka cadow oo ummadda Soomaaliyeed leedahay waa kooxaha argixisada al-shabaab laakiin haddii dhaxdeeni dad Soomaaliyeed oo inta qoriyo qaatay bistoolado muwaadiniin Soomaaliyeed dib u geysanaya ku talagalay inay jir dilaan ama ay boobaan ama hantidooda iyo maalkooda u soo jeestaan waa nasiib dartii ugu weyneed. annaga waxaan bilawnay olole aad u ballaaran oo ah in laga hortago dadka maleeshiyaadka ah ee burcadda ah ee xaafadaha iyo shacabku ay ka nasan laayihiin. magaalada Muqdisho caasimad ma noqon karto lama tartami karto caasimadaha adduunka haddii ay nagu dhex jiraan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed fal u geysanaya. hadda maanta hortiina waa ka muuqataa hubkii lagu soo qabtay 4 ka mid ahna deegaanka Garas Baale waa dadkii muddo la raadinayay booliiskana ay soo gudbiyeen. annagana shirkeena amniga habeen walba uga hadalno waxaana si wanaag shacabkan u sheegaynaa in maanta gacan lagu soo dhigay waliba iyagoo isku dayay inay gabar farxumo u geystaan. magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya ragga hubeysan ee dhaca shacabka uu geystay xilliyada habeenkii.